xisbiga kulmiya soo baxay caafimaadkiisa beejkiisa bardhaweed baan akhriyayo wixii uu ballan qaaday kama hayno 9 bishii Abriil 2019 wasaaradda caafimaadku iyo guddida mihandalayaasha caafimaadku waxay soo saareen 130 dhakhtar inay dalka ka saarayaan ruqsadii haysan ilaa imaka kama war hayno inay ka saareen iyo inay joogaan bulshada kuma soo warcin maynaan maqal meel ay kaga saareen iyo inay liisanka u cusboonaysiiyeen dhibaatada haysata dadkeena waxa weeye cid alla cid daba gasha dhakhaatiirta iyo qalliinada ay sameeyaan ma jirto maalintii dadkeena urur leeyahay waxaan xasuustaa 2016 urur baa wuxuu sameeyay research warkiisa ka sameeyay gobolada kale kama sameeyay ururkaasi wuxuu ogaaday dhimashada dadkeena Hargeysa ku dhintaa maalintii inay u dhaxayso 8 qof ilaa 49 qof baa maalintii Hargeysa ka dhinta dadkaasi ururkaasi wuxuu soo saaray inay u dhintaan dadkaasi ama cunto xumo ama biyo xumo ama dawo xumo imikana waxa ku soo kordhay xanuun fara badan oo imika ka buuxa wadankeenu allergic leeyahay oo dharka kuwii quality-ga liitay ayaa la inoo soo dhoofiyaa oo allergic baa dadkeenu skinka ayay ka qaadaan allergic cid alla cid daryeelaysa dadkaasi ma jirto aad sababo inta inoo jirta ama Ethiopia waa 6 milyan iyo bar iyo 7 milyan caasimadda inta ku nool ururkaasi wuxuu research ku sameeyay inay ka dhintaan maalintii inta u dhaxaysa 18 qof ilaa 22 qof maxaa Hargeysa oo ay ku nooshahay 1 milyan wax ka yari aad sababo 7 milyan in ka badan ay ku nooshahay uga dhimasho badan waa daryeelaan weey ummadeenu maanta waxay u baahan tahay caafimaad waxay ku silcayaan aad sababa Malaysia Turkiga meel Hindiya meel aanay ummadeenu maanta ku silcayn ma jirto qaar baa baasaboor la'aan u dhintay waxaan idin kula dardaarmayaa wadanka idinka dawlad u ah waxaan sheegayaa ardayda maanta jaamacadda ka qalin jabinaya dadkiina inay u naxariisataan ilaalisaan u damqataan waayo dawladdeenu waan arkaynaa intaanu dawlad wanaagsan helayno oo dadkan iyo dalkan ka naxaya waxaan runtii anigu dhaqan uma lihi inaan dadka u jawaabo oo tix raaco laygamana baran waxaan runtii ka xumahay aad iyo aad uga xumahay inankii dhalinyarada ahaa ee xisbiga ucud warfaafinta ka socday hadalladu halkan ummadda horteeda ka lahaa aad baan uga xumahay waana uga nasteexaynaya ma ihi maxaan idhaahayay runtii waxaan odhan lahaa madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta maanta joogta waa kuwii quruxdan iyo qiimahan iyo qarannimadan iyo xorriyaddan iyo horumarkan iyo midhahan iyo maamuuskan iyo milgahan ilaahay gacmahooda ku keenay weey adigu inay yar baad hado ama kuwii lala qaxay baad ahayd dhabarka lagu siday haddaynu dib u baadhno kollayba kuwii dhabarka lagu siday lala qaxay baad kuwii lagu soo dhaweeyay furaashkan quruxda badan baad ee halkan ku barbaaray maanta madaxweynuhu xabeeb buu leeyahay xabadii hunguriga kaga dhacday baa halka ka baxday gabilay isagoo meeyda baa laga qaado la geeyay Addis Ababa si allo u noolaado kuma talagelin inuu noolaado laakiin ilaahay baa nooleeyay kii caynka ahaa ee haddana iminka ku soo barbaariyay ee adigaagan jaamacadahan iyo iskuuladan aad sheeganayso maxaa dhahay aad ku gashay dee maanta haddaad inanka islaantaasi dhashay aad noqotay waxaan leeyahay adeer waxa weeyaan sidii soo barbaar baan leeyahay soo barbaar insha Allah bidullah